السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أتاهي سلامي دمانتين كسو دوادا مركلة إيه مقال عصو مقعيقو محمد فرحان channel كاقا داونيسين waa جمادين. Cloud computing waa موضوع amaanta. Cloud computing waa on demand delivery IT resources. waa resource-ka IT-ga ama agabka IT-ga ee aad isticmaali lahayd oo aad ku helaysid qaab online ah adigoo adeegsanaya internet xilli walba daqiiqad walba saacad walba ayaa dalban kartaa talabaadkaaga ayay ku xiran tahay dabcan qiimaha laga qaadayo oo aad ku helaysid macluumaadkaas ama agabkaas waxa la yiraahdaa pay as you go pricing inta aad isticmaalisid kaliya ayaa iska bixinaysa faa'iidada ay ku leedahay maxay tahay waxaad ka baaqsanaysaa in aad gadatid ama qarash uu kaaga baxo inaad samaysid data center waa meesha ay yaalaan kombiyuutarada serverada agabka uu ku shaqeeyo company-ga oo dhan halka ay yaalaan ayaa waxa la yiraahdaa data center inaad data center aad gadatid ayaad ka baaqsanaysaa aad helaysid cloud computing aad ka helayso waxa kamid ah compute power-ki computer baad helaysaa waxa kale helaysaa storage-ka aad helaysaa sidoo kale database-ka email wax ku kaydsan lahayd ayaad helaysaa noocyada uu u kala baxo cloud service-ka waxa kamid ah midka ugu horeeya waxa la yiraahdaa infrastructure as a service waa agabki oo dhan oo dhameystiran qalabki hardware-ka oo aad u baahneed inaad wax ku sameeysid oo dhan ayaa lagu siinayaa oo ceeriin ah meesha aad soo gadan lahayd hardware كمبيوترو سيرفرو داتابيسيو waxdan aad gadan lahayd oo qarashku kaaga bixila ayaad ka baaqsanaysaa qalabkii aad u baahneed oo infrastructure ka aha ayaa lagu siinayaa infrastructure as a service macnaheedu waa taas mid kale waa platform as a service qalabkii oo angagan ayaa lagu siiyay hadda waxa lagu raacinayaa environment-igi aad wax ku samaysan lahayd oo aad applicationadu ku samaysan lahayd oo adeeg walba aad ku qaban lahayd ayaa lagu siinayaa waa platform-ka ayaa lagu siinayaa waa complete development and deployment environment in the cloud sidoo kale midka saddexaad waxa la yiraahdaa software as a service waxay u ogolaanaysaa ama waxay macquulgal ka dhigaysaa in qofka user-ka ah ama qofka macmiilka application-kaaga cloud-ka ku jiro oo access garan karo ama uu heli karo asagoo isticmaalaya internet meel walba oo caalamku ka joogo applicationada cloud-ka ku samaysan oo adiga laftirkaaga hadda aad isticmaashid laakiin aadan garanayn waxa kamid ah email ayaa kamid ah emailka waad isticmaashaa cloud-ka ayuu ku samaysan yahay sidoo kale calendar-ka application calendar-ka ee taariikhda laga fiiriyo asagana sidoo kale waa application sidoo kale waxa kamid ah Microsoft Office 365 applicationada Microsoft-ga oo Word kale Excel kale PowerPoint kale kuwaas oo dhan waxaad helaysaa ayagoo cloud oo online ah ayaad helaysaa maxaa lagu garan karaa cloud-ka ama muxuu caan ku yahay wuxuu caan ku yahay on demand self service waa self service oo waxaaga adiga ayaa dalbanayo baan online ayaad ka dalbanaysaa waa on demand oo dalabaadkaaga ayay ku xiran tahay xilli walba ayaad dalban kartaa waqti walba waad helaysaa waxa la yiraahdaa on demand self service midka labaad oo ah broad network access waxay tahay in wax walba oo aad u baahan tahay aad ka access garan kartid internetka meel walba oo aad joogtid service walba oo cloud ku jiro meel walba oo caalamka geeska ka gees aad joogtid ayaad ka heli kartaa sidoo kale wuxuu caan ku yahay multi tenants and resource pooling macnaheedu waxay tahay in application-ka ku samaysan cloud-ka ama cloud-ka uu fududeynayo in application-ka uu u adeegi karo in ka badan hal qof ayuu halkii mar uu adeeg siin karaa ama service uu u fidin karaa application-ka cloud ku samaysan tenant waa user-ka ama qofka isticmaalaya multina waa hal wixii ka badan waay sidoo kale waxaa kamid ah rapid elasticity and scalability laba ayay u kala baxdaa waa horizontal scalability and vertical scalability horizontal scalability ama scalability guud ahaan waa awood kuu sahlaysa in awoodda kombiyuutarkaaga aad sare u qaadid markii ay awoodda ama culayska dadka isticmaalaya kombiyuutarkaas ay tirada ka bataan haddii kombiyuutarka 10 qof isticmaalayso oo 1000 qof ay hal mar soo gasho dabcan kombiyuutarka ma wada qaabili karo intaasoo qof ah oo shaqo ma siin karo marka waxa u baahan tahay in kombiyuutarka uu awooddiisa ay kor ay u qaadmato marka culayska uu ka bato scalability waa laba nooc waa horizontal iyo vertical horizontal waxaad siyaadinaysaa ama kor aad u qaadaysaa size-ka kombiyuutarkaas uu ku shaqeynayo tusaale ahaan size waxaa laga wadaa haddii memory 4GB isticmaalaysay 8GB waa inaad ka dhigtaa marka la imaado cloud-ka waxaa jiro CPU-ga la isticmaalayo oo ah T2 micro M5 waxyaabahaas oo dhan marka haddii T2 ay isticmaalayso tusaale ahaan waa inaad ka dhigtaa M5 si awood ama CPU-ga kombiyuutarkaas uu sare u qaadmo sidoo kale waxaa jiro vertical scalability isagana waxaa weeye in numberka kombiyuutarada ay isticmaalaysid aad sare u qaadid markii tirada dadka ay kor u siyaado ama kor ay u badato elasticity iyo vertical scalability labadaba waa isku micno waxa waaye waxaad sare u qaadaysaa numberka kombiyuutarada ay isticmaalaysid waliba si automatic ah ayaad ku programinaysaa adigoo adeegsanaya service la yiraahdo auto scaling waa increase iyo decrease sidoo kale midka shanaad waxa waaye measured service walba oo isticmaalaysid waa laga warhayaa monitoring ayaa lagu sameynayaa oo dhaqdhaqaaqiisa wax walba waa wax xisaabsan oo cabiran oo kor lagala socdo oo la monitor gareynayo sidaas darteed wax walba
way meeshar gareysan yihiin si loo ogaado qiimaha lacagta aad isticmaashay inta ay la eg tahay ee macluumaad kuwaas la mid ah waa maxay faa'iidada uu leeyahay cloud computing ama advantage-kiisa waa maxay kow midka ugu horeeya waa trade capital expense for operating expense capital expense waa qiimaha kaaga baxaysa inaad soo iibsatid qalab ama agab aad kambanigaada uu ku shaqeynayo faa'iidada kugu horeysa waxaa waaye inaadan wax qalab aadan soo iibsanaynin oo intaad xafiis keensatid aad ku shaqeynaynin sidoo kale operation expense asagana waxaa waaye qarashka kaaga baxaayo marka uu ganacsigaaga socdo tusaale ahaan hadduu kambanigaada u shaqeynayo waxaa u baahan tahay inaad bixisid insurance ayaad u baahan tahay sidoo kale kirada ayaad u baahan tahay haddii xafiis kira aad degan tahay sidoo kale shaqaalihii kuu shaqeynaya lacag ayay kaa rabaan marka operating expensigaas oo dhan wuu kuu baaqanayaa haddii cloudka ay isticmaasho midka labaad waa benefit from massive economy of scale waxaa ka faa'iidi karo kambaniyaasha waaweyn sidaas darteed waxa micnaheeda laga wado waxaa waaye benefit from massive economy of scale service aad u badan ama adeeg aad u badan markii aad ka isticmaalaysa cloud mar walba qiimaha hoos ayaa lagaaga dhigaya midka saddexaad waa stop guessing capacity uma baahnid inaad qiyaastid tanka kugu filan ee aad wax ku kaydsanaysid haddii aad leedahay memory 8GB ha kugu filan kadibna inuu kugu yaraado ay macquul ay tahay uma baahnid taas waxaad u baahan tahay inaad cloudka isticmaashid waxaadna helaysaa capacity unlimited ah oo xilligaa aad access garan kartid wax walbana aad ku kaydsan kartid midka afraad waa increase speed and agility increase speed and agility micnaheedu waxay tahay wax walba waxay kugu qaadanaysaa inaad samaysid daqiiqado kaliya hadduu noqoto application wax walba oo aad u baahantay inaad samaysid daqiiqada ayay kugu qaadanaysaa inaad samaysid aadna u soo bandhigtid macmiishaada taas waxay keenaysaa wax la yiraahdo agility oo ah in value businesskaaga ay sare u qaado sababtoo ah wax walba haddii waqti yar aad ku samayn kartid dadkana aad u soo bandhigi kartid ganacsigaada qiimihiisa iyo tayadiisana kor ayay u kacaysaa sidoo kale midka kale waa stop spending money running and maintaining data centers uma baahnid inaad data center aad samaysatid oo aad qarash aad ku bixisid waxaa kaliya u baahan tahay inaad isticmaashid cloud computing wax walba oo aad u baahan tahay halkaas ayaad ka helaysaa sidoo kale midka ugu dambeeya waa go global in minutes waxaad caalamka ku tagaysaa daqiiqado micnaheedu waxay tahay applicationkaaga waxay qaadanaysaa inuu adduunka uu gaaro daqiiqado wax la mid ah waa develop garaynaysaa waa test garaynaysaa kadibna waa launch garaynaysaa macmiilka jooga adduunka ka gees wuu access garayn problem solved by the cloud waa maxay dhibka uu xaliyay cloudka midka ugu horeysa waa flexibility applicationada cloudka ku samaysan kambaniga iyo shaqaalaha faa'iido u leedahay sababtoo ah wax walba ay u baahan yihiin inay sameeyaan cloudka ay ka helayaan si fudud marka shaqadii kambaniga aad ay u sahlanaanaysaa shaqaalihina aad bay ugu fududaanaysaa inay wax walba sameeyaan saas darteed dabacsanaan ayay keenaysaa oo ah flexibility sidoo kale waxaa jira cost effectiveness kambaniga wuxuu samaysan karaa service walba ama wax walba uu u baahan yahay ayuu cloud ka dalban karaa asagoona qarash badan uu ka bixin haddii si kale loo dhigo waa producing good results without costing too much wax natiijo fiican la ayaad soo bandhigaysaa adiga oo aysan qarash badan kaaga bixin sidoo kale midka kale waa scalability waa awoodda aad korna ugu qaadi karto hoosna aad ugu dhigi kartid size-ka agabka aad isticmaalaysa awoodiisa ama computerka isticmaalaysa awoodiisa korna waad u qaadi kartaa hoosna waad u dhigi kartaa taas waxaa kuu sahlayso scalability sababtoo ah computerkaaga dad ka badan inta loogu talagala hadday soo codsadaan servicekaas hal computer ma qaabili karo oo culayska ayaa ka tan badan marka waxaa u baahan tahay in awoodda la ziyaadiyo si serviceki uu u wada gaaro qof walba oo soo codsada saas darteed scalability laba nooc ay u kala baxdaa horizontal scalability iyo vertical scalability elasticity sidoo kale micnaheedu waxay tahay waa vertical scalability ayaduna waxay tahay inaad sare u qaadid numberka computerada ama instanceyaasha aad isticmaalaysid ayaad kor u qaadaysaa si culayska uu uga yaraado hal computer oo computerada kale ay ula qaybsadaan adigoo adeegsanaya service la yiraahdo auto scaling si automatic ah ayaad u samaynaysaa marka tirada dadka intaas la eg ay gaaraan halkaas waxaad samaysaa hal computer ama laba computer sidoo kale haddii dadka ay ka hoos maraan tirada intaas la eg computeradaas waa inaad dhileeda ayaad ku programinaysaa systemka saas darteed si aysan lacag kugu soconin markuu dadka yar yahayna computerada waa laga saaraya meesha marka ay dadka bataanna computer cusub ayuu samaysmaya ama instance wax la yiraahdo sidoo kale high availability waxa waaye service walba oo cloudka ku jiro meel walba oo adduunka ka joogtid meesha kuugu dhow ayaad ka heli kartaa saas darteed waa high available oo meel walba aad joogtid yacni si sahlan ayaad ku heli kartaa serviceka cloud sidoo kale wuxuu leeyahay fault tolerance oo ah inuu u adkaysto dhibka ama haddii cilad la soo wajahdo wuu u adkaysanaya ama qayb ka mid ah computerkaaga markii ay cilad ku dhacdo shaqana uu wado shaqadii wuu dhammaystiraya oo shaqadii ma joojinayo waxaana ka caawinayo in backup uu leeyahay qayb walba oo systemkaas ka mid ah ay backup leedahay oo shaqadii markay hal qayb ka istaagto qayb kale ay backup garaynayso halkaasna shaqadii ay kasii soconayso waxaa jirta sidoo kale agility oo ah awoodda kambanigaaga yacni uu u samayn karo application si dhaqso ah intaad develop garaysid aad test garaysid iyo haddana launch garaynaysaa taasna waxay sare u qaadaysaa in ganacsigaaga kobaciisa uu kor u kaco sidoo kalena ganacsigaagan uu noqdo mid lagu kalsoonaan karo waa maxay marka qaabka lacagta cloudku uu dadka oga qaado waa qaab noocee ah qaabka ugu horeeya waa compute pay for compute time computerka systemkaas ama servicekaas inta aad isticmaalaysid waqtiga aad isticmaalaysid saacadaha intay leegihiin aad isticmaalaysid kaliya ayaa lacagteeda laga qaadaa sidoo kale storage waxa aad ku kaydinaysid cloudka sidoo kale lacag ayaa lagaaga qaadaya aydan sidoo kale data transfer out of the cloud lacag ayaa lagaaga qaadaya daatada ka baxaysa cloudka oo banaanka aadaysa waa lacag sidoo kale daatada soo galaysa data transfer into the cloud waa free daatada soo galaysa cloudka ee banaanka ka imaanaysa ayaduna waa free kambaniyaasha
marka bixiyo cloud service-ka kuwooda ugu waaweyn kambaniyaal badan oo bixiya ayaa jiro laakiin kuwooda ugu waaweyn maanta waxaa ka mid ah Google Cloud, Amazon Web Services oo ah AWS iyo Azure oo ay bixiso shirkadda la yiraahdo Microsoft. waa saddexda kambani ugu waaweyn. dabcan haddii aad u baahan tahay inaad cloud-ka ku shaqeysid ama cloud-ka aad wax ka baratid waxaad baran kartaa AWS maadooyinkeeda ayaad baran kartaa, sidoo kale Google Cloud ayaad baran kartaa, sidoo kale Microsoft Azure koorsooyinkeeda ayaad baran kartaa. muuqaalka intaas ayuu ku egyahay. aad baa ugu mahadsantahay daawashada muuqaalkan. haddii aad wax ka faa'iiday fadlan muuqaalkan like saar. haddii aad jeceshahay inaad wax ka barat arrimaha IT-gana channelkan ku soo biir. sidoo kale wixii fikir iyo fariin aad noo haysid iyo muuqaalada aad jeceshahay inaan soo sii deyno fadlan commentiga noogu wadaag. intaan ku kulmayna midkan midka xiga waxaan idin leeyahay nabad iyo warsan.